السلام الله عليكم أصحابتي ذا. Eat 2 meals a day to 5,000 children, but the warrant said the nutrition dollars at ما أنت واحد كده بجين دونا دعوين مالمهان ركاسي مينيابوليس كدعي أو سوماليدو أد وجه ورسالة. بوق ومبهن يعني بوق وباحنا هاي اسكير مقال كان مكي عندما يستيد below الله نمات سيد وحود عين أدو فهنسن آيات كبحي دونتها دي أنا وعشبتها سبسكرايب تدو ودي جرين لايك تدو وعدسي كومنتي جنا في كان ولو ساكسور بهذا برنامج كيف فاصل. واتهاي وحنو مرينا يلا بدي بري قدام بيسي إن وربحنا قوس وميل لو راعة عن الفهنسنين oo laga soo duubayo Minneapolis Soomaalida baa saara Mareykankii iyo maqaaxida Safari waxyaalo fara badan in aragto aad ku mashquulsan tahay waa asleedahay uniyo baxan Soomaalida Mareykanku noolad ku dhacay xaaladaas dabcan dad fara badan oo caan ah oo sawiradooda la soo dhigay ama dad kale la wadaagayna way jiraan dad aan waxa shaqo ku lahayn oo caanana way jiraan dabcan sheekada marka bilowgeeda idinka horgeynaya mashruuc ama project waxa jiray socday intii corona uu jiray ama lockdown adduunka laga galay mashruuc عشان projectkaas wuxuu ahaa dabcan mashruuc dadka xanuunsan ama koronaha uu ka dhaco ama shaqooyinkoodii lockdown ka galay guryaha joogo waxba aan haysan lagu caawinayo projectka waxa soo xiray ama arrinkan horta Soomaali waxa soo dhigay qof la yiraahdo Aymi dabcan waa ka aragtay social media iyadoo loo buraanburayo oo loo kacayo oo dabcan للي waxa way boqoradii Aymi baan u buraanbureynaa war Aymi bilan way eeya gabadha la beegsan karin oo Aymi bilan qofta saarkaysan ee la yiraahdo Aymi ayaa mashruuc soo xirtay mashruucan sidiisa wuxuu ahaa mashruuc dadka ama ciyaalka yararka ama caruurta lagu caawinayo wadanka markuu corona ka dhacay lockdownka intii lockdownku lagu jiro corona uu socday projectkan wuxuu ahaa project lagu caawinayo dadka Soomaali meeshii way soo dhaxgaleen marka 100,200 baad qaadanaysaa فاميلات عاونيسا رسيدتي iyo natiijadii wixii baa soo qaadanaysa dawladda oo tagaysa intaas soo qoys intaas soo kun oo shakhsi baan caawiye baa leedahay corona intuu uu jiray marka waxaan u baahanahay in lacag kale oo dheeriya la siiyo 1 milyan baa la soo qaadanay 1 milyan iyo bar Soomaali baa ku taqaana marka 1 milyan 200 kun baa dadka dib loo gelinaya lagu qarash garanaya 800 kun jeebka la gashanaya cuntooyinka waa kuwana laga xayisiinay cuntooyinkan arkaysan waa cuntooyinka laga xayisiinay meesha la dhahay for free way soo doonta Snapchat-rada waxa waaye Instagram-ka meel far badan baa lagu xayisiinay wallahi dadka masaakiinta waxa weeye wax u qeybineynaa bal ilaahay baa ku dhashay Soomaaliya fiiriya darada waxaan ka hadlayay safaaradda Malaysia oo dadkii dhiigooda miiranaysa kuwii Mareykanka ku noolaa ee taraagid iyo wax walba ka shaqeysanaya intii haystay waa u dhaqmay soo dhaqsada time ka leeyahay waxaanu joog dabcan dad caana meesha lagu xamalayay Maxamed Baristimol oo kale Maxamed Baristimol iyo Abtiliban iyo dhankaas kuma jiraan iyagu permission bay qaadanayeen xayisiin bay sameynayeen laakiin dad kale far badan oo caan ah oo dhankaas Minnesota laga yaqaan oo ganacsato iyo dad waaweyn ah baa ku jira dabcan xaalkoodana hadda wuxuu yahay xabsi guri oo maxaa yeelay waxa kiiska soo galay oo hadda gacanta ku haya FBI-da FBI-na ma aha state ma waa federal waa toos macnaha waxa waaye waa kore ka socdaan waa investigation ka hadda lagu hayo ama dadkan dabagalka lagu hayo waa dabagal heer federaal ah. The FBI said the Safari restaurant and event center claimed to feed 2 meals a day to 5,000 children, but the warrant said the nutrition dollars actually flowed to shell companies for personal use. sidoo kale arrinkan waxa gudaha ku jira ama arrinkan iyadana xataa taageertaan maqlayay Ilhaan Cumar oo dhankaasi Congress-ka u fadhida Soomaalida dabcan waxaan dhigi karnaa kiiskan oo kale markii uu gacantaada ku jiro ama Congress aad tahay hawl fara badan baa ku taalo si dadkaaga aad matalayso ku soo doortay aad sharafkooda iyo meel markooda iyo sumcaddooda ee Mareykanka ku joogan aad u ilaaliso dabcan Ilhaan Cumar waxaan leeyahay shaqadii haddeer Soomaali intay ku dooranaysay shaqadii ugu adkeyd hadda horta taala bal mid kamid ah muuqaaladii dabcan intii socotay hawshan iska soo duubayeen aan isla fiirino Taliban oo kale waa dadka xayisiinta u qaabilsan buu kamid ahaa inkastoo asaga kiiskaas uu gacanta kula jirno dadka 1 milyan dawladda ka soo qaato san ahayn bal hal mar muuqaaladiisa hal iyo laba aan ka daawano بوق مرمان بوق ومبهن يعني بوق وباحنا هاي اسكير halkaas waa ismahan daahir بوق ومبهن يعني كوب شاعر maalin walba sin mid loo qaaday dhalay sheekada ku soo dhamaatay dhalo hooyo ama hayraatay sida u jeedaan dabcan haddii uu Abtiliban oo xayisiin u sameeyay oo buuq marba ku jiro kuwii waaweynaa maxay sameynayaan baabuur baa la gatay waaweyn
guryo waxaa lagala baxay 1 milyan half milyan baa guryo lagala baxay saacadaha waxaa lagala baxay $2,000 kabaa lagala baxay $3,000 markabiyaa la kaleystay badda korkeeda lagu damaashaaday xaaladda macnaha waxa waaye 2 sano corona socday waxa ka dhacdaan ku dhahay alaabtii 50 cent iyo aloo noolaa laakiin waxa wax laga xumaada halalkaas milyan ee dawladda Mareykanka laga soo qaaday qoysas fara badan baa lagu qaban karay si fudud baa loogu tuntay gaal wixii maluumayo hadaa isleedahay meeshan Soomaaliya waa afaara Soomaaliya kuwad gaal wixii maluumayo brotherkeegi bal dadkii Minnesota ku noolaa iyagana qaabkay bal uga filciyay hal iyo labo aan isla fiirino. Guys won't believe this. Soomaalida inta adeegnimo meesha ka gaadhay waxa ku dhahay dawladda Minnesota way ka shakisay dawladda Cayda waliba way ka shakisay maadaama $2 milyan ay soo galayso hadda business kan oo FBI da xiratay markaas dawladda lacagteeda markay xirtaan Soomaalida maxay samaysay lawyer bay qabsadeen maxkamadna way la furaan garsoorihii baa ku dhahay Cayda gardadaad u xiratay lacagtan ee iska soo daa markii loo soo daayay meeshay tartiibsan lahaayeen maxay sameeyeen 100 million la isku gaaray more than that baa la gaaray oo xitaa Safari restaurant ka wuxuu dhahay 5,000 oo ciyaal baan cunto siinaa haddaad ogtihiin abtiliibaan ya Snapchat kiisa dadka la socda maalin kasta wuxuu soo gelinayay Safari cuntada ala soo doonto ciyaalka ala soo doonto warhaad ninkaas I hope he's okay because xaaladu ma sahlana dabcan muuqaaladan aad u jeedaan waa muuqaaladii lahaa dadkan lagu caawinayaa for free buu ahaa wax for free aan ma jirin dabcan 100,000 ama 200,000 baa dadka lagu adeegayay lacagta dawladda laga soo qaadayna wuxuu ahaa project 1 milyan ku dhow hala qof 100 qof markii arrinkaas ay heshiis ku ahayd 100 milyan baa dawladda Mareykanka laga qaaday waxaan 1 milyan gaarina dadka loogu adeegay waayahay bal fiirino mid kamid ah dhalinyarada iyagana social media ku jiray caanka oo arrinkan aad ka ula socday bal iyagana qaabka ugu filciliyeen Minneapolis ay bunkii la cunay bodboodkiisa la rabaa masaakiin aan quudinayna lacag baan siinayna haye lacagii dam hada dad badan oo caan oo 2 sano la xiray la arki doonay 4 sano horta dadkii la soo tarxiili doono alqolaan waayaan halkan qol mujeeda iyo fadhigiisa idin haya dad badan oo caan la soo tarxiili rabaa maqli marka qol iska bulaan ku waaya laakiin Starbuckski biitsadii freega ahayd ma fahant taxi return meesha ma jiro cambuul return isoo return ya galay return ugaali return meesha taal marka ugaali ina biitsa kaaga dhigana badiyaar oo hawlo Mareykan cunay ma qaabna ay u noolaanay marka banka craftis su'aal isweydiin mudan waay qaabka u noolaanaysid marka Mareykan xoolihiisu kugu fakado su'aal isweydiin mudan waay marka dadka ku wareersan ee baalkaas barnaamijkaas meel u raacaan waayeen ila hadeer faanteen baan jeclahay idin ka dabageeyay wuxuu ahaa project dadka hadii si sax ah wada sax lagu marana lagu faa'iidi lahaa laakiin Soomaalida markuu soo gaaray waliba qoftaas ay projectkan ay soo gaarsiisay laga faa'iideystay oo magacii Soomaalida lacag fara badan lagu cunay dabcan jaraa'idada ka soo hadlay idaacada TV-yada ka soo hadlay waa hawl Mareykanka oo dhan hadda laga wada og yahay lacagahaas waa lagu tuntay waa lagu baashaalay wax walba hawl kasta guriyaha xataa laga iibsaday Mareykanka dhexdiisa Nairobi iyo Kenya xataa guriyaha laga iibsaday marka kaliya waxa ay tahay inta Soomaaliya iyo guriyahaas laga iibsaday oo aan xisaabta bataqaana aan lagu haynin ka badanba marka waxaan dhihi lahaa isku soo wada duub Soomaalida Minnesota joogta waxaan leeyahay war hadda project heshaan hadhow yaan dhuunta la idin qabanay dadkiina projectiga si fiican ugu adeega dhig miiratayaan la wada noqonin tan 10 hadii noqoto gaal xoolihiisa ma lumo qalin xisaab la daba jooga wadankaaga hadda xisaabtiisa iyo dhaqaalihiisa aad ku soo tumatay ka joogtid kaama yeelayo inaad saadod canshuur waa la dhuusan karaa qofka isagoo shaqeynaya 2 shaqo canshuur laakiin se dad magacooda inta ku soo qaadid ina hadhow lacagtaas cunto lagaaga duumaado taas adduunka ugu xun marka waxaan u maleynayaa hadda inaan si fiican idinku faahfaahiyay si fiican u fahanteen barnaamijkii aan kaga hadlayay dhankaasi Minnesota xaaladii ka taagnaan intaasaan ku soo gabagabeynayaa haddii aan ugu cusubtahay subscribe taad wadiirigin like-taadu waa codsi commentigana fikirkaaga u wadaagtaa intaan kulmi doono barnaamijka lamid ah waa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Soomaaliya idin leh ciao ciao